شرح جقد المدحوين حسب قتلة الدلك هي كلمية مصبيح عبدي وما أنت كهد لي مضشي حريك شركة جدك ودحية مقالو إنك كلبير يدلا كنا سقنا مدحوينها قرن كن سوماليلاند ayaa waxa uu ka jawaabay hadalla dhawaanahan ka soo yeedhay dawladda jaarka laha Somaliland ee koonfurta Soomaaliya isagoo ku sababeeyay Somaliland iyo Soomaaliya ay kala yihiin laba dal oo kala madax banaan waxna ayna kala socon dhisitaanka aqalada kala duwan iyo madaxtinimada doorashada ka dhici doonta koonfurta Soomaaliya Muuse Biixi Cabdi musharaxa madaxweynaha xisbiga kulmiye oo arintaasi ka hadlaya waxa hadaladiisii kamid ah waxaan maqlaynay shir watashi oo xamar lagu leeyahay oo lagu soo qaaday in Soomaaliland qayb laga siiyay horta waxaan leeyahay dadku inay ku dhaqmaan waxyaalaha waaqiga taagan weey haddii Soomaaliya iyo Soomaaliland bari wada ay isku darsameen oo ay wax wada yeesheen midowgaasi waa dumay hadalkiisana ku dheeraan maayo waliba si dhib badan oo khasaaro badan oo raadkiisu aad u xun yahay ayuu ku dul waxaan leeyahay maanta qolada xamarkood shanaysa waxa dumiyay oo waxa deedeysaan iyo hal isimaada baabiyay oo dilay koow talada xamar loo galay 9 ee wasiir adweedana u qaybiseen waxa marag madoonoo dilay 30 sanadood ay dawladda wada ahayn ee adduunkooda wayna caawinayay waxa kala weydeen inaad samaysaan wadada Karabayd iyo Boorana taasa ugu raadka ugu adag ah iyo meel wada lamidaba anagu maanta waxaan u jeedaa dadkayga dhismo waxaan ugu jeedaa inaan cusbitaalada iyo iskuulada dhisano waxa warwariya culayska miskaxda ku jirta sida dhalinyarada u shaqaalaysan uma jeedna maanta inaan isqabqabsano oo aynu isku buuqno uma jeedna maalulba gaf soo jeeda inaan ku hadalno marka walaaladay waxaa leeyahay ilaahay idinka dhibtaada ka dulqaado dalkiina dhista kayga dhisanaynaa dad dari soo walaala oo laba raas oo walaala aynu ahaan isku soo wada duubood tan iyo markii ay soo ifbaxday qabashada doorashada madaxtinimo aqalka baarlamaanka iyo waliba ta madaxtinimo ee koonfurta Soomaaliya waa mas'uulkii ugu horeeyay ee ka jawaaba hadallada dilqaafka ee ka soo yeedhaya isla koonfurta Soomaaliya Jaamac Xuseen Jaamac Today Space Journal dila gobolka Awdal